الله وارياه هو سيدي لا إله إلا الله نيجي كان عانية شاهي اسكو دري لكن أول برسول شريه خليه يفهموا عادي هاي إن يربان سرنا يا هست يرد يسمح الله في كشوء سجاش كبار صوّد يا عيسان سيد عن شريعة عن بولا الذين قيبينه والله يراها حبسا معيو الله يفك ولا يرسو السجا يو أنتوا قف وتصوّد يا عيسان هونه بريك قفت بال يرسو السجا ساعة كمال بانك ركب اللي بالكوب لأنه ما لقى يقول مقام الحوش كلام مسارين سنتنا لاقو مقادين على سجالي وي هيدي كل اسكت ديار باتيله الله سجالي اسكا صياع واحد ربا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما انتي وتسلامين ما كسو جوجتان waxaan rabay waad falaastii baan shahay furkii waan loob inta falaastii furay baan iska dhigay furkii way baqarxi gaadhay marka korno inkay gabigayga waan duulaya away qadaad dhub saf soo gala iidoor saf soo galay waliba inta ku faraxsan gabadha miskiinta la xiray saf soo gala waxaan rabaa dhowr su'aalood inaan weydiiyo wax kale oo saasan ma idma xanuujinayo wali aad idii ku adkaynayo marka halkan iska xaadiri hadii aad ku faraxsan tahay gabadha miskiinta ee abwaanada la xiray horta niyow iska soo diiday garoobahan ku soo qorqoray soo qabay wax ku soo qorqora kuwiina ku doodaya gabadha ku faraxsan marka dood hagaagsan hadaad la imanayso weeyaan maaha hadaad adigoo iska iidooreysan iska kay soo galeed waariyade doodka noo daade wadanka teesaweel waxaad kaysatay taa lama rabo qadaad way baadaan taa lama rabo waxa la rabaa wax si aqliyaysan u yiraahdo oo at least ugu yaraan badbaadinaya xaakinkiisa ama dawladdan yar kharibantay ee gadaal ka xaartay badbaadin karaya hadal ku badbaadin karaya ama sabab uu samayn karaya sabab uu ugu faraxsan yahay gabadha xarigeeda sabab u samayn karaya halkan ka soo diyaar garow soo qorqoro dabada iyo hor intaan ana qaylayo dabada yar ruuxo atash si aad dareenkayga iyo aad u hesho intahay ku qabtaan aad isu ruuxo intaan qaadan yar qaniinayo taqsiimaya oo jabana arooriyada baraf baan ugu soo batay moogta daaqadaydi waad yaabasay ma ku wax tuulan marka waxaan isleeyahay jabana un baa ku dhaafin barafkan moogta intaan u yar qaylo ma gaariga taabanaya wuf hawayga saaraya baan ku 3 saacadood baan gaari sii wadaya waliba waan sii diyaar garoobaya maanta qodin iyo xaradin qaar badan baa ku faraxsan Elias baa ku jira xataa Elias isagoo kuma faraxsanaa Elias wararkii wuxuu soo qolqolay Elias oo adil kuma soo qabanayo iska soo galo iska daawan laakiin qaar ku dhacaan dhageysanaya bal waxay leeyihiin waxaan soo qabanayaa war ma cadeeye xaq horan ka soo bilaabaya waliba qofkii ugu soo hor taagtay ayaa ka soo bilaabaya kuma farxin saniin xariga nicimo ma tantiin abwaanad oo ku qoslayba taasi isoo qabo Xasan Cali Nuur baan ugu soo hor qabanaya kanad bring Xasan on camera dadku way masquushi ku jiraan Akram Usman baan hadaba soo hor qabanaya
أكرم وانك صلى الله عليه وسلم ديارو كركان كسوقت كركان حرّينا بل دودي نير دقيستو إنتي نمسكح لغا هايستياشا السلام عليكم هنا. وعليكم السلام وعليكم والله أقصر على الحين حاسة. لا تعال الحمد لله والله. ما شاء الله واحد نيو بالمقع عقدتك وغيرتها تاريخ يو وحو وأنا يوم مقعي قرتو إن أصحابته هذا ما تدبون سلام يا مقعي أكرم بالله. ما شاء الله الدنيا ميل ما كتشوجا ماشي هسوا ما كسر سلام يا هذه إن هذا نعم قرنا هرتو حد قال له جيستي مركز شرعي أهم لقاها الله أو شرعي ماتا أي وضك إن سومالان ويا لا أي ده إن وحكو حكومة يعني ده معها شرعي ما هذا بس لكن ده واحد ما شرعي ما هذا شرعي ماتا الدستور كسومالان ويا لا قف صوماليا تقول الحرا ده ما الدستور إما كلا سمية مسوى الدستور سوتشيرنا أنا waxaan arkaa dastuur soo jireena maaha qofku waa xurriyad buu haystaa halku doonu tagi karaya balse laakiin dadkan ku doodaya in hal la xiro oo sharcigay ku xad gudubto wax noocaas ah taanu sharci meesha axmedo inaar oo ma arkade anu shakhsi ahaanteeda akramaanteeda haddaan ka hadlayo weeyaan de wadana dhawaatay markaa congratulations aan ku hambalyeynaya inaar wadani dhamaanteen ba ahaya inta afka Soomaaliga oo ku hadashee waan in yar baa xayawaana in yar baa Soomaalinimada ku jirinba oo wax kala ka dhaadhacsan yihiin dhagaxan yihiin bay aaminsan yihiin dhagaxan صح marka waxa weeyaan hadal la yiraahdo maartay hadal dhacaa ama la yiraahdo oo ma loo doodo dad lagu waaniyo waxay doonto qaabkay doonto ha ahaato Soomaalidan arag hadallada noocaas oo kale waad ka garanaysaa waxaan ka wado baa waxay u qaateen hadalladii erayada la yiri sida ay yihiin bay u qaateen erayada la yiri sida ay yihiin imika waxa jirta hadalla si loo dhigay sina laga wado Soomaa waxa kaga dhabowday صح صح waan kula socdaa Soomaali horta hadallada ay dadku may seed u aragtaa eeg Somaliland baan ahay bise laakiin Soomaali ma ihi de waa laba farqi sax marka labada farqi anu waxaan ka leeyahay ugu sharaxayaa horta Soomaali de madaxa guudun baa laga yahay balse laakiin wixii hadarna marka laga hadlo siyaasad political ahaan hadda hayne life ku jirnaa san soo garaay marka ina Axmedow waxa jirta de anu labada farqi waxaan uga kala jeedaa wax kala maaha waxaan uga galay wax kala maaha de magaca guudun baa Soomaali laga yahay ase wixii dawlad ahaan halkeeda la dhigaya inaad de marka mar walba maxay dawladdu meesha loo keenaya marka jinsiyad laga hadlayo jinsiyadu waa Soomaalinimo anu waxaan cambaareenay aniyo ala kulli xaal haddaan hadalka sideeda aan soo gabagabeeyo caadi ugu tuur ha waxaan haddaan u soo gabagabeeyo de Soomaali weyna wada daawanaysaa shanta Soomaaliyeed war way daawanayaan halkan qadaadweyn wada faraxsan yihiin inta yar laga hadlayo iska wada adug war haay inaar qadaadweyn tana sheegaysaan anu magacan qadaadweyn inaar niyo umada ka daa idinkuba birqaalaan baa tiin door baa tiin ikana la yimid waxaan dhiyo afku noo geliyo way naga dhigtay wala macaanaatay nacayb naga maaha laakiin waxa ka wada eeg war inaar dadkeena Soomaaliyeed ee koonfur daga akramo u fiirso say soo buuxinayaan u fiirso maan dhaweyd waxaan u soo galay inaan balad xaawo ka hadlo oo qasab lagu qaatay waxaan ku wari malaha 400 300 intii kala wada yaaceen oo dhuumanayeen mar alla marka Somaliland baa waxaleen ama Somaliland laga hadlayna safka hore ku wada jiraan halkan daawo soo faraxsan yihiin way soo wada taxeen sheerta ugu badan iyaga baa doona maanta saaro buufinay Somaliland soo faraxsan yihiin wada yaabi laakiin dhinac walba de ogolaado walaalayaal anu dhinac walba ina ka hadlaan jeclay waayo Soomaali baan guud ahaan sida wiilka Akram sheegay guud ahaan Soomaali baan soo iguma raacsanin صح de marka wixii Soomaali oo dhan magaceena Soomaali ahaan wax yeelaya
meeshu doonaha joogay dee inaynu ka hadalno xaq baynu leenahay waayo imika kaa iska daa qadaadu mayaan odhan kaa reexa markii halkaas iska jiray aboowaha ah hargeysa waxa ka dhacda waa kan soo galaya safka horeba ee doodaya abwaanada sii daaya maxay sii daayada haya dee maxaa noo diiday annaga inaynu xamar wixii ka hadalno ama koonfur wixii ka dhaca inaynu ka hadalno waxay noo diiday ma jirto laakiin sibay u diidan yihiin runta marka la sheego iyaga laftigooda maxaa bal arrinkaa ka leedahay adiguna seed u aragtaa horta haddii reer koonfureed anu ma odhanayo reer xamar wax noocaasa dadka soomaaliyeed ee koonfurta xamar dega muqdisho dega soomaaliya dega hadday inaga wax inagu saabsan amba kolle anugu lahjadeeda waa la fahmayaa baan jecelahay dadka soomaaliyeed anugu waxba ma qayrayo anugu nin waqooyi ka soo jeedaanahay balse laakiin dadka koonfur dega hadday ka hadlayaan dee asbaaba inaga inagu saabsan amba dawladeenaas amba wixiina hadday iyagu soo hanqala taagayaan kasoo qaylinayaan inagu tooda markaan ka hadlayno sababaha anu horta wallahi de waa anu waxaan u arkaa waa inaga horta marka hore waxaan keenay waxaan ku sheegaa waar abo mirqaan laan baad haniyo mirqaan laan ku ekow ha ka hadlan xamar maxaad uga hadlaysaa xamar maxaa ku soo geliyay soomaalidii waa diiday soomaalinimadii waa diiday dawladdii dhexe waa diiday calankii buluuga waa diiday maxaad uga hadlaysaa xamar mirqaan laan ku ekow haddaba anaa kuu sheegaya de aboqorko inaad anaa kuu sheegaya inaad bilaa caleeya horta dadkan horta labadan dad wax isnecbiisiyo waxaan keenay dee waqooyi weeyaan run marka laga hadla de waayo inagu haddayn dadkii ka go'nay inagu aan diidnay inagu haddayn dadkii iska cunsuriyeennay iyagu markaa ma gamcahay baruuriya ay ku sitaan way saasay kugu soo qosliyaan iyaguba delaaga markaaga way kugu tufayaan marka inaga marka hore waxaan keennay eedhkii wixii ka dambeeyey inagaa go'nay inagaa nidhi dawlad gaaraan nahay markaa iyagu inay iska qoslaanay dee magaranaysa iska aamusaan maaha de sidaa u nacabta iyaguba dee ku naxuji adaana marka hore ku horreeyey markii hore soomaaliya weyn baa lahaa kowdhe dee run baa laga hadlaa dee soo maaha kuguma diidi karaya taas markaa inaadeer dee kollaytana waan arkayaa asxaab badan baa la isoo qabo dhammaantiinba wada islaamaya niyo axmedowe laakiin niyo inanta anu shaksi ahaantada akramahaantada waxaan aaminsanahay sharci ay dawladda somaliland dastuurka ku yaala waa dulmi ahaan baanu arkaanu waayo dad kale oo faamoosa dad kale oo fanaaniina tegay sababaha loo xiri waayey ay one time ay inantaasi u tagtay soo noqotay sababta xukunka adag lagu riday iyadoo le inan ay tahay والله أي ولبه هيئة الشقين سي مستحفياتها والله وان كحمها والله أي ولبه إن أنت هيدا يو أم بعد بنقول ماشي تجرب بقى تجي دمر بقى تجي ضد بقى ولبه ديار اللي وصل دوين يداون يسي أو ده كله يفهم يعني ده كل أنا السربيات هذا مقراسة مركا أنا إن أنت واحد واركا نيو حد جذب بار واركا نيو وما سنت هذه بنقول سلام يعني نيو أيد سلام بقرطوية دمانتين بملك استاكل شوكتان بقى أحمد أظن السيجارة نقول سلام يا سعد هذه أظن الله كهقاضي ما شاء الله نرجع أي سعد نبيه واحد يشكتان ده halka horta yaan ugu soo wareegin taa waan u soo noqon doonaa koonfur iyo waqooyiga la isku keendiraya dabkeena la isku shiday ka kala dhibaatada heshaa inuu ka kala uu ku faraxsan yahay been ma hadda uu ku faraxsanahay imika qadaadweyne qadaadweyne way ka diinayay konf maxaan u bixiyaa magac banaadirigaan idinku yeedhi bal banaadiri magacaasaad ka heshaan bal malayna reer banaadir waxaan idin leeyahay iyo waqooyi galbeed iyo banaadir waa la isu shiday dabadooda la isku uriyey taa waan idinku soo noqon doonaa weliba xogtana waan geli doonaa laakiin waxaan rabaa horta inaan dhowr kale qof oo weliba ku raac kaanu boqor kaanu waa xaal naga qabo Elias baan soo qabanaya horta bal inkastoo wax ku raacsan aan rabo horta Elias baan rabaa inaan isaga fikirkiisa caadiga aan u helo laftigaagu adigii lahaa dee بدارت يرد قرقرنا سايلاه الو مرقان قصر ريور مرقان كور اريور محاسه maxaa saaniyo wallahi waan fiicanay ma sha Allah waxaan iyo balaayo mooyaane wallahi aad ma saaxiib fiicanahay dadkii ma iska deysni horta ni dibtid ina adeer ilaahay ku dhaari madni wiina horta madax sooni walaal walaal maxaan ka xishooda adaa iga darane
anu imika hadaan kaa doodaya baadhoweyd ka hadlayo lahaa Ilyas sar u qabanaa daanu ma cid ma gaban anoo yiri cid ku dhigan ma arto meel taagan oo cid iska haysto iyo mid aragtay wali tama anagu cid taagan oo cid ka haysan maartay bal waxa ku dhacay daawada dee haa adigu waxaan ku arkay adoo mar le warqadaad yar isdaayay warqadaad yar isdaayay ku dhex waashay oo ku dhex waasho ya isma deynayaan kuwan aan isma deynayaan labada group caado raacniyo labada group caado raaco dhagaxaanta qaar la daba galliyo ma nagana soo raac ama iyaga raaco dhagaxaanta la daba gal waareegniyo group un iska raac maaha adna yar loox baatay moog group un iska dooran maaha yar loox ha diyaar sabra kaayma deeg daafta alla kugu dhaariyay group un iska dooran maaha alla kugu dhaariyay waxa weeyaan sax ma dawlad ahaan markay noqoto ma siyaasad iyo dawlad ahaan markay noqoto iyo xadaarada meesha jirta midba dee dhalasho ahaan iyo dawlad ahaan iyo siyaasad ahaan waa la garanaya meeshaan ka soo jeedo ari cadeeyaan ka soo jeedo I know you sax soo saamaha dee laakiin markay noqoto halkaas waa siyaasad ahaan waxaan uga soo jeedaa Somaliland baan ahay dee maanta waan doorashada waan ka qayb qaadanayaa madaxtinimada waan u cararaya waan soo sharaxayaa waddanka hawlgalkiisa waan ka qayb waxaasoo dhan halkaa ii dhig anu taayna meesha muran ka taagay ma moodayay miyaa saaqaynaysaa laakiin marka ay noqoto inaad rajinsiyad ahaan dee Soomaali ma inaan wada hayn ma Soomaali weyn eeg marka dawladda marka laga saaro Soomaali weyn laakiin iyagu deynta ku yimaadaan bay koranayaan abbo kuwan Soomaali diid waayno Afghanistan bay ka dhigeen Afghanistan bay ka dhigeen dadka Soomaaliga u keenana waa aniga hargeysa niga calan ka taagay waa aniga markaas koranay abbo qaar baan soo qabteen oo hadlayaan ku uri caawa Soomaali wada qaadanaya ama ana qaadanaya balgabaygi bal sheeg ama siida loo tiriyay sheeg Soomaaliya markii la isku biiriyay waraabo anagu ciyaalka xaafadaanayno ay kaga hariyeen anagu ciyaalka xaafadaanay kuwa la dagaalamaya hadda Ilyaasow koonfur waxa ka soo jeeda kuwa sidaas oo aqoon wadanka u lahayn heesta calanka Soomaaliyeed qaadi karin calanka buluuga wuxuu ku yimid garani meel uu ka yimid dhiig loo soo daadiyay aan garanay waqooyiga soo koonfur ka soo jeeda afka raaxada imika waxa kamid ah ka dhex galay ninkii me ka degay kamid ah ninkii me ka degay kule anagu hadaan reer waqooyina waan nacabnahay reer koonfurna waa goormaan naca wuxuu sheeganaya reer waqooyi buu sheeganaya kule waan nacabnay ma nacibin dad Soomaaliyeed weeye dadka anagu is haysanaa waa dadka baraha bulshada soo gala koonfurna kuwaas oo kale ku jira la soco ku jiro de wala labada group labada ku dhex waashaan ku horeynay wala labada ku horeeyo ha anu hadalka cad baan sheegaa nacaybka iyo ku horeeyay dawladda Soomaaliyeed ku horeeyay Soomaa waa garaacdaas ku horeeyay oo hoos yaacay baday oo dadkan laysay oo dadkan xasuuqday ha isaguna halkan buu soo galayaayo waxa laga rabaa inuu rabo dhowr hawlood oo ka dago oo yiraahdo alayna inaan ka hadalka fiicnaayo argareeyo raba oranagu wax marno wariya dadka nacayb ku horeeyay oo dadka Soomaaliya weeye dagaalka dawladda ku soo qaaday dawladda Soomaaliya yes or not waa sax marka maxaad ka leedahay arrintooda inaad calankooda qof inaga ama Soomaaliland kamid ah uu calankooda qaato ama taabto ama uu salaamo mid qadaadweyna ama tusaalahan gaari buluuga uu raaco ama tusaalahan xamar tago ama tusaalahan xamar u soo heeso maxaad ka leedahay arrimahaas oo dhan maxaad ka leedahay horta anigu horta mowqifaan marka mowqifkigan ka helo ani calanku wuxuu la mid yahay tamaro calanka Soomaaliya taa waan kugu raacay ani calanka Soomaaliya mar uu la mid yahay calanka ana keenay waa calankayga saan u naca aniga alabe waxaygi ma waxayga naca waa sax ninka xamar ka soo tan buluug ay cirka leegayna dadan cirka eego dhaw buluug de ilaahay banaaye qof ilaahay ta dhagaxna inta hor taagan noqonaya Soomaa waa sax taas ma waxa la isku haysto horta waa siyaasad boqor oo walaal waxa isku haysana waa siyaasad dadkan aanu maagayna ma dadka Soomaaliyeed shiyuukhda culimada wadaadada hooyooyinka mama dana kuwa ma haysano war waa tirada dadka anagu haysana waxa weeye waxa wadaal cala soo miran iyo islaantan imika maalin dhowtay ku dadka barnaydeen waa dadka isku diraya wax kala fadhiyaan gudoomiyaha madaraqa umada Soomaaliyeed ya inaad dadka uun bay isku dirayaan inta aad ka sheegtay waqooyi joogta ee kula xamar baan nacabnahay maxay baan nacabnahay inta in leeb ku jirta soo moogid qadaadweyn halkan ay wada fadhiyaan kuwa qadaadweyn markaa waa magaca bay ka leeyeen qadaadweyn imsan laayeen burgaan aan isku aamusno hooyooyinkay ku jiro hooyooyinkay may qaylaan hooyada may qayshaa ma garanayaan waa cawaan abbo burgaan abbo doosaga dabaarayaan abbo burgaan naga qadaadweyn tu dhashay ku dhadaada war kuwaas inagu dadar iyo waxba inuu cunaaye ya hawadaygi kuwaas waa kuwa inta miiro ka dhaga guryahooda meel ku yaalan garan waaya xataa maxaad ka sheekeynaysaa warniyo damid kale markay qayli jiray bal adigu imika caawa qaylo yidhaa wax la arkay noorta kaa xawaadlay aad buu murqaamay ninka xawaadlay
magaalada wuxuu guuraysa ku leeyahay aboowe magaala wala soo garaacayo wala soo garaacay wallahi markan burcad joogan qayli jiray de waxa ma odhan jirin aboowe magaala guuraysay magaalada dad baa soo taagnaa balakoonka qaar baa sigaar cabay qaar baa meedhinayay biyo wax lagu soo daadan waayay waay marka biyo dad wax lagu soo daadan waayay waay lagu hoos meedhinayay ninkii tubarqaame magaalo guuraysa war may wuxuu ku leeyahay dad baa meedhanaya biyo markaa may soo daadanayn de biyo halkooda dee tagnanayeen beentiya adduunka muxuu ahaa kaasi are these people are this war dadka waxba lagama qoraniyo dadka waxba lagama qoro wallaahi wabillahi imika maxaa taala imika meesha waxaa taala meesha imika inan baa taala nimca qorane la yidhaaho xidhan waa 100 jeer oo ka hadlay dowla soo deynaya dowlanteena waa walaashin tan xalay muxubbe inan la yidhaaho muxubbo oo ku dhimatay kismaayo ninkeedaa dilay ninkeeda ayaa barta ka tugtay halkaa qalbadu ka tugto wallahi ninkeedu wallah sabab cid ka hadlaysaa ma jirtay anigu waxaan isweydiinayaa ma hablaha reer waqooyiga unbaa sharaf leh hablihii kale soomaalidu maxay sharaf u yeelan weyday ragga soomaaliyow maxaa loo kici waayey hablaha maalin kasta la dilayay ninkeedii baa dilay oo ku yidhi iska soo qaad uurka way uraysatay wallah wuxuu ku yidhi anima ku uraysatay anima uraysatay abbaaya khawaadka maxaan dhaha haaka fadhiisaba muu doonta haaka fadhiisaban gabadhaad oo uraysato gabadhaad goru doontee toogatidba anima uraysatay aniga halkaas ku dhuftay xabad wallah cid ka hadlaysaa ma jirto nimca qoranoo xidhan tolkeed xidhay hargeysa ku xidhan magaalada ku dhalatay ku xidhan jeelka hilibgeel ku cunaysa aboofiri meel kasta way kugu dhaafayaan afar islaamadoo nigisaanta madaxa ku sita waxaad ilyaas waxaan rabay inaan ku weydiiyo gabadha nicmo qoran la yidhaahdo waxay ku xidhan tahay hargeysa oo cidda la xidhanta waa dadkeedii ha qalbi dhagax xabashiba qaadatay cid ka hadlaysa maaragtay weli war maalimii dhaweytoole ay maalmo ay berbere ka hadlayeen horta waa horta magaraad aan kaa dhex gale berbere maalintay ku hadlayeen ileen somaliland waa sirmaqabo ilaahay baa u maqane kenyaatiga baa soo garayba kenyaatiga baa isku hambalay kenyaatiga guranayaba bal ka waran way ka hadli waayey ilaahay wuxuu daba dhigay somaliland buu daba dhigay imika aan soo noqday ninkan la yidhaaho sheegeen ninkan la yidhaaho qalbi dhagax waxa weeye waa nin weeye mujaahida waa nin dalkiisa u dagaalamaya weeye dadkii lahaa etoobiyaan baa jeceshiinow taasoo caddayn waxay tahay annagu dee dinan etoobiyaano jecleen etoobiyaanku cadowgayga yahay nin cadowgaygaa deen etoobiyaanku yahay laakiin etoobiyaanku iyaga saaxiibkoodu yahay coldoon maalinta la xidhay ma xusuusata hargeysa lagu xidhay free warnaga kelmadda free ingiriisku waa inuu ku qabsadaba nin maxkamadda lagu saaro maalintaa ma xusuusta coldoon lagu xidhay hargeysa maalintiisa ku wada caanayna ka dhiga wada caanay noqonay maalintaas wada caanee cidda ugu badan wax ka sheegi jiray soo etoobiya maaha etoobiya wax ka sheegi jiray hargeysana lagu xidhay maxay lahaayeen anigu waxaan kuu hubaa in halkaa facebooka lala dhex socday coldoon somaliland waxay u dhiibaysaa etoobiya soo lama lahayn yes miyaa loo dhiibay ma loo dhiibay naadan bal hadalkaa markaa ka mari waaye horta midaan kuu sheegaya waxa weeye horta walaal aan mid kuu sheego horta facebook bilaa qadaadiweyna waxa weeye soomaaliya bilaa arsenaala ma fahad dadkan facebook baa u baahan iyo dadkan qadaadiweynta facebook baa u baahan inagu facebook wayn qasbaynaa qasab iyo youtube iyo like iyo nasiyan ku wadnaa dadkan waa dadkii facebook hadda loo sameeyey niyo moraal fiican bay hayaan wallahi dadkan saaxiibteen niyo inaan makaa qayila hadda chat niyo iyo baxad ka daba bye bye chat saaxiib sababa ya jis niyo wala waa karaxsi la ilaha illa afkoon buu kala qaadi ilmahaasi kaadiyo xaar maad ku dari arhay bal waan madoobaaday xataa balan soo celiyo hataa cadaankayga qosol baan la madoobaaday war cadaanka xagu tegay cadceedda dhacday baan malayna balan soo qabta qof kale hataa qof kale raadinayaa oo caawo away runta kuu sheegne waayahay waxaan soo qabanayaa firax gabadh leedhaa baan soo qabanayaa firax siciid ifka nolosha weeyaan nolosh maaha waad ku istaagta halkaas soomaaliga maydaa noqon farax halka ka dhigta hadda firax gabadh farxanba halo salaamu calaykum way mana
وعليكم السلام ورحمة. سيتها ولا خير الحمد لله وأنا لظن هاي سيتي منكم. عاديات بنونا سنة ولا على سودو وخير مرقان لأنا ومحاها تقلادين مالين أن لك أنا وسارنتين دايما إنكم دارية. ولا القدادين وكوي ما تقع ها. من القدادين أنت ولا لا ما يوم مقع إذنك نوب حسانة. ما يعدكم أنا بحين مقع هاي. وحلو بحين يا دوب حسان مركا. أنت يا رادتك سكوت درتي وقوي كسوت شدا ليدا هذا قدادين ما يمركا أفكك قادي ما هي مركا أفكك القادي بواحد تلادين نوه تدك دهنا وادتك حمر دقة. ده وين waxaa faanteen maaha ده waxa la yiraahdaa kuwa noo dhaha oo aboow dhaha oo koonfur ka soo jeeda maya aan ku sheego xilligii maxaan ku dhahaye la duqeeyay Hargeysa nooh may duqeen dadka duqeeyay waa la yaqaanaabtay yaa duqeeyay dadka xasuuqay Hargeysa yaa hayn waa dadkana imanka jaarka tiino gabdhaha siisatiin kuwee walaalo gabadhii maxay ku hadlaysay maad fahanteen wax ma ka fahanteen wayba baxsatay dhowr su-aalood baa weydiye wayba carartay kuwee umaadho maba garanaysaba cid alla cid ay wado yaa gabdhaha la siinaya ay sheegaysaa gabdhaheedey gabdhaha la bixiyo waa kuwee anu waxba kama fahmin gabadha bal waxaan eegi qof kalean eegi doonaa taa iyadii baa neeftuuraysay muddo inuu dibi ku dul kufay balaaya kugu dhacday away waxaan soo qabanayaa qof kale qof alla qofkii gacanta ku dhacdo maanta waa iska soo qabanaya halkanaad wada yaacaysaa السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله قبلها لقوا يقان إني كاميرا قريان بقرخان بلدي ورا الساعب يا ولد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام سعود خير قوقاية السلام عليكم شهادة هلو عدك هاو دوق قوقاية ولا الآن لوقت الله لوقت السلام عليكم السلام عليكم هذا ما مغشى واري ورا بقرخان كليرا ها ولا ما يديك يد كجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورت مركا روانكم السلام يا سعيد أها يورا سما في عنته هذا يسا وفي عني ما شاء الله ما شاء الله ولا لكن أبونا دي إنا قرنا ما في عناه قبل منو كهذا الله ها قبل داون عبارين يا ها ما في عناه قبل داون أدبان عبارين يا مقرن سدول دواني ستك دقة وسود يسا ستك دقة سدا ودك سياب بدن ها ما شاء الله ما شاء الله هذا كيف وضع ما يسوي حتى الوام كتور كذا نرجع ذات ما شاء الله ها هذه أنا يربان كلها يا صاحب هذا يقرأ عليها سودا ولا وحقا دليل بانكو هيا دي ما دي قريسي تالله بانكو شراي قرعيو دي ما أنا waxaan kugu sheegayaa macni ma garanaysaa xigmadaysan maaha aflagaadiyo waxaas nin weyn iska soo daa waa caadi iska soo daa waxay Soomaalidu tiraa timaha qaarna hoos baa loo xiraa qaarna kor baa loo xiraa hay marka berdheed waxaan ku yiri adigoo islaanta ay nigo saciidsanaya malyuun maxay ahayd malyuun ay yiraahaan iska barakaysan deenaadar meesha hay naga najaaseen ma naga deys haayo xogaa dumarkaad gacanta ku fogaatee ka dhimbaan kula dumarku hablaha niyo waa ku sideeniyo khayrka jiirin khayrku ma dhilooyinka mise dumarka kuweed ka hadlaysaa ma hablo dhan dhilooyin ma hablo way kula dhasheen saaxiib kuwa la dhashay lama hadda kula dhashay ma dhila ما أنا كواس ما أنا هرب الصومالية ده هين ما علينا كوا كمان علينا ولا كوا صوماليين كبدين هم مساكين كوا كمان علينا كوا إحنا كهذا لنا ولا أنت هواي يستعجل صدق على بدل قدو كلا واحد بابور تدنا كحرام يا ما تشني بتكالي سابلا الصوماليين بتكالي سايلين إلا قبل وان ضلنا وين ما الصومالي ما هو وش شكتان ولا وش شكتان ما هو ما أنت هركروجا بحد المهم المهاية شكله يعني لو فقان تاكروجا بح صاحب وان السلام يا أدنى السنتين ما فهمتي واقرت ولا الكربان الكرة ترى بحال ميل بيدين بيجي حكي بالوية وايد بنكو سلام يا صاحبي أبين وناس
هيا ولا جوس سودو السلام عليكم هيا هيا عليكم السلام وانا سبب جعيلو وانا هيك صور بتقول عوا كاسيا و مجيجي بوها مجيجي ان waxaan soo qabanayaa qof alla qofkii ay gacanta ku dhacda maanta bal wax alla waxay ay dadku yiraahdaan baan eegayaa laba erayo ma dhaxaysa wad cararaysaa okay la soco السلام عليكم هلو أيوة السلام عليكم taageero weyn ku ahay waa soo dhawo walaal soo dhawo seeta waa fiicanahay waxaan rabaa inaan ka hadlo nimco qorane hal waxaan rabaa inaan horta u sheego Soomaali dhan kulligooda Somaliland sharci bay leedahay sharcigana haddaad og tahay waxaa waaye haddaa waddan kasta waxaa jira dastuur u yaallo qofka dowladda uu leeyahay waa inaa xushmaysaa aad maaragtay aad ka bixin sharcigiisa dowladda marka sharcigu waa marka Soomaaliya qofka Somaliland sharciga ay dhigteen waxaa waaye waxay ayaga hadda ay ku doodayaan inay rabaan inay ku gaaraan sharci ay degsadeen waaye inuu qofkaasi waddanka joogo uuna ka bixin oo meel kale aadin inta ay ka helayaan xorriyad iyo waxay ay rabaan inay ay ku doodayaan ma fahantaa so haddaa adiga rabtid inaad ka soo horjeesatid waa inaad ka baxdaa saad uga baxda aadan ku soo noqonin taan aaminsana aniga haddaad mar sharciga jebisay ma ahan inaad dib u soo noqotaa haddaad ku dib u soo noqotana waad og tahay inaad sharciga jebisay wixii kuu yaallo oo lagugu qaado waa inaan laga doodinaa anitaan aaminsanahay marka waxaad leedahay Somaliland way ku saxsan tahay ani from may Somaliland way ku saxsan tahay oo waxay ugu saxsan tahay anigu waan ogahay sharciga u yaalla waxa weeye qofkii xamartaga waa la xirayaa may sharcigu u yaalo waxa waaye ayaga waxay ay rabaan inay ka hadlaan ay dowladnimada raadinayaan ay waxay ugu talagaleynba waa ay ku joogaan ma fahantay marka hadda waddan kasta fiiri Ingiriiska fiiri waddan kasta sharci buu leeyahay sharciga dowladda aad degantahay haddaa la yaqaan journalist ah meeshaas aad ka ololeynaysaa wixii aad rabtid inaad tartid dadka because dowlad ma qasbi kartid ma fahantay marka waxa fikradaadu waxa weeyaan gabadha abwaanadeena Nicimo Qorane ma xariga 3 sano lagu xukumay way istaahishaa ma leedahay ma istaahisho oo taas qalad waaye oo ani waa ka xumahay ma fahantay waxay aad xornimo waxay Soomaali rabtiin isku keento way dadaalaysay ma fahantay xarig badan inay lahaato ma ahayn banishment daan Ingiriis ma fahantay qofka banishment dowladdiisu way sii kartaa like 6 months oo kale ala sii karaa marka hore qofka kale sharciga saas u weyn in gabar lagu rido ma ahan ma fahantay marka waxa leedahay waa lagu yar badiyay uuna laakiin xukunka waa lagu saxsanaa xukunka because dowladda sharciga soo dejisay aaba taalo meesha markay ka bixayso sharcigaas inuu yaalo way ogeyd marka waxaad leedahay qofkii calanka buluuga qaata xamartaga xukun baa ku dhacaya de waddankii buu u yaalay boqor xaqto sharciga waddanka aad ka bixaysid waa inaad og tahay meeshaad ka tagaysid sharcigiisa waa inaad og tahay ma fahantay ma igu raacsantaa masaqaladaad ani maya waa kugu raacsanay qodee dawladdu walba sharcigeeda leedahay ha soo sharcigii haddaad jabisay Soomaalida kalena waa support garay karna aniga Soomaaliya from Muqdisho ahay waa support gareeya Coldoon waa support gareynay maanta free ma lagu jiri karo soo kii noo soo goosto anaka hanala joogo hadduu uu xagga ka soo goostay so hadduu uu xagga joogayna xagga ha joogo because already waddankaas sharci bay leedahay dastuur ay leedahay intaan sano gooni u taagan tahay
soo ma ahan inay soomaalida la isku qaso adigu waad samayn kartaa inaad dad aruursatid inaad waxay samayn kartaa website ay furo kartaa hayeer qofkan igu soo biir join tay dhahan gaalada waxay dhahaan meel baad ka dagaaltami kartaa marka go'aanka ugu dambeeya waxa weeyaan qofkii xamar taga ma fahantay macalinka buluuga qaata hadduu hargeysa maado waa xarig yuuna tegin hadduu soo baxana yuuna ku noqonin taas waa aidiyahan rabo qofkii imaqlaayo inuu ku fikiro hadduu kasoo tago sharcigaasi uu og yahay inuu ku waana qaato sharciyadii kale dadkii kale lagu riday taasay micno u wadaan soo hadda wixii ka dambeeyna kii xagga kasoo goosto yuuna isku day inuu ku noqdo siduu soomaalida iskugu dhex yaacinin because waa isku dhex yaacayna maanta in qadaad weyn inta ma lagu jiri karo ma fahanti mid kasta kii soo goosta nala joogo hadduu naga tagana meeshiisa ha joogo ma fahanti dadka yaa la isku dirin das dirmaan u arkaa aniga because sharciga ka yaala ma bedeli karta hal qofood waad ku saacsan tahay waad ku mahadsan tahay fikirkaaga walaale waxaan ururinayaa fikirka iyo xogta dadka iyo wixii ay ka aaminsan yihiin ama ay u malaynayaan marka aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa walaal aad iyo aad soo dhow baan ku leeyahay ayo waa mahadsan tahay milyuunna ka dhimiyaa wax badan baa baahan laga dhimo ma baahan loo kordhiyo baahan islaan sida ka dhin أيوة أسي وينك سلام قف كلام سوق بنا يا وحنا هذا سوق بنا يا هذه إسماعيل بكتير وراي بحمل لي طلب أو كربان صانع سواء كان برف جور يوم من سوتنا وانا أركي. وحصل. كسلام جاي. يور. هاد بقى كسلام يور. سأتي. أظن برناك معاه كل دقيقة قاعد يخد حدقي. وبدأت هوي واحد عيه. أربعة تعبين مليون بلس ما تبي يلا جوري صار كم وقت. بقى بات كلوس لوك بات كأيه كسامي ميلدو. بقى كسر نعيم ليدي. maxaa ka soo dhicay waa fuulin be markaaba wallahi u fariistay bixi maayo baan ilaa haweenka laga xirxado wadooyinka laga hagaajinayo haye marka halkan aan iska yara fiisleenayaa waa de ogtahay waa soo dhawow dadkan hadda salaan oo bal dhongadan ku garanayna bal u yar raac magacaaga bayda ku buuxda asxaabteedii aad bayda salaamay kulligiinba Ilyas baan arkaa kulli waan idin soo koobi karo maantiba aad bayda wada salaamaya xasan waa aragtay waxaa socda waad ka garanaysaa xog ku sharxi maayo aad shalay baan ka hadlay bal waxa la wixii raacinayso ka dhiibtay oo yiri baaq baan u diray xukuumadda u diray madaxweynaha iyo dhammaan moogtahay yani moogta la iska sii daayay inanta ina yar weeyaan waqti baa ku socda aniyo mana qaadi karto xabsi iyo ma garanaysaa waa qof dumar nin raga gudba la gelin lahaa moogta inaad araw midba inagu maqan midba igu dhex wareegaysa aad waxaan leeyahay moogtahay waxaan leeyahay ciqaab ugu filan intiirada xidhnayd afartii bilood ay xidhnayd ay magaranaysaa intaas ugu filan hala iska shaafiyo hala iska war muxuu ka sheekeynaya ma afar bixinay kulli saddex meelaha way gaadhaa afar kulli meelaha oo aanu darhaad ma moodin xunka lagu rido la qabtay niyo waqtigu cararaya niyo sad marqaamis waqtiga cararaya war inta fadhiya waqtiga iga tagay inaan ma dheegu dhex wareegaysaa waxa weeyaan qofkii yar kacaba madaxa kor yar qaada dhulkii jooga hooyo waad garanaysaa hadda waxaan ka hadlayo meel wax ka bartay garan mayna adigu aqoon yar iyo yar xigmada u yara korodho waxaan kaaga dalnaya coldoon iyo abwaanada qofkii saa u yar kacaabanayo maxaa sidan ugu dhacaysaa sidan muxuu u samaynayaa isagu horta sidan muxuu u samaynayaa dabeedna sidan ugu dhacaysaa taasaa iga dadig weyday waa ku faahsanay ka dhow jidada bif uma odhanaysa anoo xamar bay sii cararaysaa tii yara wax barataaba hadhowna qadaad weyn baa soo eryanaysa soo caayaysa waxa weeye dhacaya خير باجي waxaan garan waayay meesha ka socda horta xeer baa jira xeer baa jira odhanaya nin muwaadin ah oo magac kula bulshada ma aha dadka yani iska caadiga ah moogta rayidka ah dadka yani moogta way iska tegi karaan oo yani moogta ganacsi iyo waxay doonaan
iyagu laakiin dadka yani moogta magaca sumcadda ku leh ee muwaadiniinta ah waayo waxay wadaan moogtay anay muxuu ahaa waxay matalaan moogtay magac bay wadaan moogtay dadkay wadaan hada bulshadii oo dhan waxay noqonaysaa moogtay nusqaan bay ku noqonaysaana xeer baa odhan qofkaasi hadduu halkaa tago yani wuxuu ku dhacay dembi kawdhe ilaa uu yani u dalbado cafis u dalbado taan ka wadaa waxa weeyaan marka intaynay dadkaba soo jeedin naga dacasanow dadkaba intaynay soo jeedinin ooyna taageerayaal badan yeelanin ooyna bulshada aad u dhexgelin oo bulsho badan yeelanin marka saa u kacaan maxay xaggan ugu sii yaacayaan 1 point baa lagu haystaa khaladkeeda lagu haystaa waxay tiri iyadoo joogta muqdisho ayay tiri markii aan joogay hargeysa waa lagu gumaysan jiray cid hargeysa isku gumaysta qof yani ku gumaysan yaa isku gumaystay markay ku aragtay بس ولا يقول هيا عيد هرقيسة يعني موقت سوق بس ما شفت وغلط وين تاس وغلط تاوا كوكو راحسنا وغلط هو بين بقول بيجي تبدي أنا قبل حطينا قبيل ما أرما هين ما وحكلا هين حتى قفك كلمة ده أبجال أما قفك مريحان أما قفك مترتان أما كعيسى هرقيسة شو قبل لوجو بيسنو ولا يجي بيسي أرجع حطينا جنسيات كلا هين الصوماليات انتهي سكت تاي ساق الصوماليات هذا تاي أي لوجو بيسنو تاس دعين أنا هو عنو فكر كده وحر بقى موقتي وحي أي أمسنت فكرة وحر عيدكو قبسنا ساملة وأنا حاسن أمسنا حاسن أنت أنا وحنا إثيوبيان بارهيد وإثيوبيا ما تي أوكي واحد الصومالي واحد الجيبوتيان أما واحد التشايني جابانيس كودي وحي المدرسة أما أذكر بتاع هذا يقول تلا وفكرة هذه قد أمسنتها لكن وحيابها واحد الدين الموت النسقان تاي هرني هالك أسوي حلي وسوس سمي تاسا محل وسمي كودي مركا تاس أي الوايس بوينت يا كلياتها عدك سوق مسته أما عدي يعني موقتي أنا عديتي وحكولي عدين تيدي كان يقابل القبصان الحلا يا عدي وحكوتري يعدي قومي سند أوكي ما هذا مو حد شيء يسمحوها بين يبرر بقانو تودن بعد موت أسنا إنهار ضوضة نيدا ودي بعد سبيه إيه قوا كانوا وحنا قبل يقول ضوضة بقرن معي ها مركا وحوي قبل أسقطوا هاجر هلا يسوي ما كتاكل هذان waxaan jecelnahay mar walba maartay hadii aan nahay moogtahay moogtahay dhalinyaro ka taageera moogtahay dowladda social media waxaan mar walba aan sheegnaa inaan ka xunnahay xariga gabadha aan sheegnaa yani waa laga wada xunnahay wana caddeena xukuumadda aan sheegnaa baaq baan u direynaa xukuumadda in la iska sii daayo waan u dirnay cidii aad hadli kartaa bal u diro xukunka laga dhimo miskiinta والله حلون يعني موقتي يعني شقينين لكن waxay gashay dambi adduunyada maartay waxa ugu xun moogtay been inaad sheegto propaganda xariga ay xirantayna dambi wax saa u weyn maaha hadayaan wax weyn laga dhigay propaganda maanta hadda rumahan marka laga hado hada waxa saa weyn maaha sameyn waa dambi cad weyn moogtay marka muxuu ahaay inay qirato dambigeeda iyo in la cafiyo waa intaas wala cafin wala soo deynaya dhawaan marka cafayn badan bal lagu hayaabad malaynaysa xasan عدين دبل وهي عدين حديقة والوهي أو تاسع يقوم يبصن بوينت كاسة ماشي ويلا دولة هايستا يدو وين هذا هو حديث شيء تحضر هذه جاي مكحسنة مريكم بتشوفته واحد تري هرجيسة مركان شو يقول ليكم يصير تصالح هانك سوقا ورياضة ساتري فيديو بتصدق طلع فتوقع ساتري أغلقاك مقصين يا إلا أنت طبعا سربتي طبعا سربتي أنت سومالا سحول عياد رادح تجيو العذابي أنا قرر ما طبعا سربتي في فكري برياسي لكن أذيقو نوم واحد هاي دبلوي هي قرار لا أنت سومالا أنا مكهرجيسة أترى هو اللي يقوم يسنشري أو صاص اللي يجري أو صاص اللي يجري أو صاص اللي يجري أغلقاك مقصين أنت هرجيسة تحت تاتنا وكل نقطة وده أغلقاك يا مارك تاسي وان تيجي جزء حريقة جزء سما قفك قرر إنه يعني يقول oo ka dambi ka galay oo garanayo yaalba tigi meesha moogtay hadii alla aqleedahay moogtay duwayay waxa ay sheegtay hadaba waxay niciima ku tagtay iyadoo video og in laga duubay iyadoo erayada leh oo waliba xamar joogto calankii buluuga wadata oo erayadaana tiri hargeysa wax ka tiri sida ugu noqotaan la yaabanay aqliga aniga oo gabadha uu doodayay laakiin taa laga dhaadhiciyay aan gabadha ugu doodo waxa weeyaan easy weeyaan horta waxaan yani moogtay waxa weeyaan moogtay record weeyaan meediyahan waxa la duubaya record meel yaala weeyaan maanta keena aynu ku hadlino waxa weyn moogtay yani wax duuban weeyaan waar erayaad ku toobad keento sidii asaanbo sidii asaday imka
kowde markii hore waxay moodaysay inaan la soo helaynin moogtahay wixii hore ay soo duubtay tayso waba video isaga moodi kartaa haye ni aqliga ma galaysa taas de anigu waa tan siri moogtahay waayo qof dhan oo waxay gashay moogtahay anay oo dhan bay gashay waxay qabatay anay intaasoo xaflad bay qabatay oo ay ka tiri yani moogtahay hargeysa lagu gumaystay hargeysa maxay lagu sameeyey muxuu ahaa ilaa hadda dadka waa la gumaystaa kowde xaflad dhan intay qabatay moogtahay marka muxuu ahaa waxaasoo dhan ma waxay tiri moogtahay laguma arkayo lagulama socdo ama lama soo helayo I don't know yani wallahi tii ku kaliftay inay hadda dib ugu noqoto wadankii iyadoo gashay godobta kowde marka arrimka doodii aan uga xumaatay aan ma garanayo waxaan ku hadlaba doodii waa waxa ka xumay doodii runta ka xumaynaysa waa tan de ha aan runta ma diiday runta ma diiday moodaa tiimka run lay sheegaan waa iska qaataa marka erayada aan leedahay ninaan ku kalsoonahay baa tahay ma iga hobtahay in caddayn lagu hayo oo erayada tiri caddayn baa lagu hayaa waana duuban tahay youtube ku jirtaana de markaa pointiga lagu hayo uma ku leeyahay dawladda Soomaaliland waa in la bariyo lagu dhaahdaa ha bilis hal cafiina yar weeyaan bariyo ma ku leeyahay laakiin wax kale ma aragtay marka lagu hayo inaan ahna xuquuqdeeda hal loo soo dhiciyo ama waxa ma yacda loo tagi karnay marka waa kaliya inaan barino oo dhaahno waan idin toogana fadlan hal iska cafiyo gabadha abwaanada hal cafiyo waa gabadh aqli badan oo inaga dhalatay de dhulka inoo soo baxday bal inoo soo iyadana qomayada oo joog ku dhaxa dhulka oo na hargeysa joogo dadka abwaanimada baro dadka xigmada ku afuufo hargeysada iska jooga la dhaho marka doonta qurbaha tag marka doonta xamar tag cid kuma diidaysa xamar laakiin dadku isku dirin de adduunyada maartay waxa kala saaray mogta caddeyn ba kala saaray evidence cadad de waxa tirada waa been mogta idin ka rumaysan mayso marka caddeyn xageed ka mari baad inaad aro caddeyn qofka lagu hayo xageed ka mari marka inagu mar walba xandirna baaq baan dirnaa hal soo daynanta yar waqti baa soo yar weeyaan marka waqtigeeda iyo waxbarashadeeda iyo magaranaysaa in la iska sii wadato afisna loo fidiyo imika kullayba waa 12kii wayna daawanaysaa dawladii warar hoosena soo gaaraya sidaan hayno in la soo daynay dhawaan insha Allah Allah ka sii daayo walaal Allah ka sii daayo waa miintoon ugu tufa ku salaamaya gudoomiye aad badi salaam dhamaan doo dhaw xasano war dariiqan iska ilaaliyo iska cararne tarad wixii u dhacay doctor yaabi lahayd haye war maanta waa caadi maanta soo markuu baalku bilaamay soo haweenka ma soo galin quraacnimadayda haye oo milaabis ku soo baxin xaggan noordiga ma sii soconin haweenka aan fara ku dhacay maaha daba kala aad gaariga dhaqaajo kolba Mexican buu ilaahay soo diray oo gaariga iga saara haye waxaan ku uri haweenka ilaa xaafadii inta ka gaaray ilaa Minneapolis ka soo socday hareeraha maarta sayrka haweenka waa tirin karaysa baabuurta 1 2 3 way wada yaal way soo galaysa u dhiyo isku baabeen marka halis weyn baan galay wallahi gaari taayiradu kama dhibaan wada waliba waa shalay waxba dhacay war salaalniyo aad baan ku salaamaya aad badi salaamaya ayola war waxaan soo qabanay malay ka baxay meeshan iyo bye war yaara wallahi inaan mid tale soo qabanay mar dambe ordo nagala taga waxaan ka sheekeynayaan iyo gabadhu haay imika anigu marka hore waxaan islaa dawladda yar halkan ka doodo dawladda yara juqjuqeeyo yara camcam iyo de yara magaranaysa dacdacayday ku yar adkeeyo wax islaa dawladda Soomaaliland cunaha yara qabaan islaayo gabadha ka rid baan islaa oo xogaa cadayma dadka horgeegeeyo dadka la doodoodo dadka u sheego maxay dadku wax kula doodaan oo dad soo qabo waxbaan isla lahaayo de gabadhu inay nadiiftan moodii abwaanadu iska tahay soo qumayadeedii baa ka daranbo iyadii baa intay dawal aqliga ma galayso alla idinku dhaariyay yaa yato halqadaad weyn dhamaantii wada imika aniga haygu soo horjeysano haygu doodino gabadha ka soo ridaayo dhan waxaan meesha soo galay waa gabadha darteeda alla idinku dhaariyay dib adduunkan maxaa ka siiya say wax u socdaan dadkan miyadan baranayn goor ma la baranaya imika hadii imika xasan waan ku kalsoonahay waad garanaysaa waa nin aad daawataan dhamaantiin marka xasan been iguma sheegeen imika ereyga waan si garanaya caddayn waa la hayaa waanan hubaa aan dhowr goor ku celiyey been igama sheegeen ma dhaa oo xasan wuu dhowye waan soo qabanaya halkan uu ii jooga war u tagay waxa oranaya maxaad saa igu tiri been ereygaas kama aha oo qof been halkan kama sheegi karayo qof maasha Allah wada garanaysaan oo dee run laga bartay
marka haddii ay walaalayaalow dee haddiiba maahe waa taasoo inankaasina inoo caddeeyey in caddayn lagu hayo iyadoo intay hargeysa ka tagtay gabadh reer hargeysa ah oo somaliland u dhalatay tagtay xamar eg xukunkeedu ma fiicna waan ogahay gabadh intay hargeysa tagtay xamar tagtay de waa iska caadi anaaba xamar usoo socda maxaad ka sheekeynaysaa niyow anaaba xamar usoo socda kowdhaha laakiin waxaad iga dhaadhicisaanoo aniga iga daadegila dee qof intuu xamar tagay hargeysa ka tegey yidhi hargeysa laygu gumaysan jiray oo gumaysi baa igu socday oo xornimo uguma noolayn dabadeed calankii buluuga haaye aad iska garanaysaan hargeysa dee inay dhalinyartu de waad iska maxaa la idinka sheekeen calanka buluuga waxa saska laga qabo waad iska garanaysaa cirkii baa la eegi laaya dadkan kor ma eegaan kor kaba ma eegaan idinkuna waxaad sheegaysaan calan buluuga oo xadigta ku taalo rasmigiiya marka intuu xamar tagay oy xamar tagtay oy calankii buluuga qaatay oy tir waa lagu gumaystay oy la budbutay oy isku sawirtay oy u doodooday oy maasha allah u hadashay xamar oy tiri soomaaliya ha israacraacda maxay haddana kurka dheer soo dhigoo dhidhidhi soo dhawo hargeysa tag dabadeedna filo in lagu daayo oo aan waxba lagu weydiinin oo lagu odhan walaal goorma lagu gumaysan jiray ama aan lagu odhan maxaad saa aad ugu galaysaa waddankeed xagga dambe uga tooganaysaa ila waa khiyaamataasi waa xagga dambe ka toogasho weeyaan qof aad wax siinaysay oo haddana ku daba maray oo ku dafiray oo qof kale intuu tagay yidhi waa ninkaas waa weligii waxbay muu siin jirin haddana kugu soo noqday oo haddana filaya inaadan weydiininba wuxuu saa u yidhi sababtu saa u yidhi dabeedna qadaad weyn way dhoorro maran halkan ay soo fadhiyaan aniga iminka igula doodayaan gabadha xukunkeeda waan ka xunnahay dee waa run horta waa gabadh xukun kuma fiicna oo jeel kuma fiicna gabdhaha islaam haddaynu nahay dee islaamnimo haddaynu nahay oo inaynu marooyin iyo waxa isku qabsanno ma fiicna islaamnimadeena dee ma garanayaanu jannada saad u rabtaan inaad u tagtaan laakiin islaamnimada meel kama soo gasho dee qof baan mara ku xidhaya weliba mara kaloo dad islaami ay leeyihiin baan ku xidhaya taa islaamnimada meel kama soo gasho diinta islaamka meel kama soo gasho waaya laakiin been ka sheeg war gabadh waa gabadh isaaqa maxaad ka sheekeynaysaan si hargeysa loogu gumaysan bal qabiilada kale bal qiil waa loo raadin karaa bal nin majarteen oo hargeysa jooga nin majarteena oo hargeysa joogo puntland ka yimid bal waa la odhan karayaa qiil ama sabab waa loo raadin karayaa ariirkaadi baalku sii baktiyayaa balan yar sura dabadan ka suriyeso galiya yarkaadiya waan miyuu ku socdaa balan sheegaray oo ku socdaa marka tusaale ahaan qof puntland ka yimid oo majarteena oo hargeysa yimid bal waa la odhan karayaa oo majarteennima loo xiday oo maxay saasaa loo xiday waa la odhan karayaa nin gedab gursiya waa la odhan karayaa ama samaroona oo hargeysa tegay saa bal qiil waa loo raadin karayaa kuwa alla idinku dhariya madhan igu dhagaysta ku abgaalo xamarka soo lugeeyey bal waa loo raadin karayaa qiil lagu xiday oo waxaa la odhan karayaa maxay isaaq buuna ahayn oo saasaa loo xiday bal dhongoy ilaah baan kugu dhaariyey gabadhan oo duriyadii isku sheeg ka dhalatay oo joogta inay isaaqu ku doodaan oo yidhaahdaan maasha allah abwaanad baa naga dhalatay maasha allah gabadh caqli badan baa naga dhalatay maasha allah gabadh xikmad baa inay intay xabar tagto tirada hargeysa lagu gumaysan jiray saad uga rumaysataan idinku qof isaaqa hargeysa lagu gumaystaa bal saad uga rumaysataan aniga igu talaarixiya midhaa gumaysi maba dhici karaba waa lagu gumaystaa ma dhici karto waayo gumaysi ma soo geli karayo nin walaalkii meesha xukumo gumaysi lama odhan karayo waxaa la odhan karayaa walaalkaabaa ku yar cadaadinaya waa bahbah taana iyaga u taallaa innaga nooma taallo innaga ahaan qabiilo shisheeyaanu ka nahay marka sheekada halkaa gaadho marka in jilib la isku haysto oo ninka xukumay aabihii iyo iyada aabaheed wax ka dhexeeyeen kolleyba laakiinse gabadhu markay intaa erayada tiraahdo dee xaq bay u leeyihin dadkan inay xidhaan dee walaalayaalow naga daaya dee doodiiba waanu xidhnaba daga jooga bes waan ka baxaanu sheekadaas waaryaara gabadha inaynu doodno halkan horta waxaan ka baryayaa maamulka somaliland waan idinka baryaya joog garacyo diirka casla mar dambe ay soo wicin macallaa diirka muuska taa ku yaalle dowladda somaliland waxaan leeyahay fadlan codoon waanu idinka barinay waad sii daysay miskiinku waa kaa firdhadkii qatar iyo carab dhexar cararaya oo adduunka ugu necbaa fadlan jamhuuriyadda barakaysan jamhuuriyadda muqadiska ah jamhuuriyadda aqoonsigeedii berri soo socdo